halgan buu soo galay maamul buu sameystay hadduu halgan soo galina maamulkaasa baa siyaasadda loo igmaday maamul buu sameystay maamulkaas siyaasadda loo igmaday wixii siyaasada maamulka ayaa ka hadli kara madaxda dhaqanku kama hadli karto siyaasadda mana dhexgeli karto kuma dhex dabaalan karto xad baynu leenahay inuu xadkeena aynu soo dhaafno haddaynu cuqaashanahay ma ay aha bir saxaafadeed aan qabto anigoo ah afhayeenka cuqaasha golaha cuqaasha ACC Chief Aqal Maxamed Chief Aqal Xaaji Cabdi Jaamac Halac waxa weeye marka waxaan ugu horeysiinayaa Allah subhanahu wa ta'ala uga bariyaa intii halgankii la soo maray ku geeriyootay ama ku shahiiday shuhadadii ku shahiiday Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu naxariisto kuwa maanta inuu harsanayno macnaheedu maxaa leeyahay xorriyadii ay sababta u haayeen dhiigooda maanta inuu harsanayno Allah subhanahu wa ta'ala waxaan uga bariyaa inuu jannadii geeyo intii ku dhimatay intii ku dhaawacantana waxaan leeyahay Allah ha boqodiyo subhanahu wa ta'ala talageliyada koobaad waxaan siinayaa shacabka ACC oo aan leeyahay laga soo bilaabo halgankii kalshaale iyo halgankii lagaga xoreynayay cadawga gobolka Sool taqriiban dadka dhintay ama ragga dhintay waxa lagu qiyaasi karaa 1200 ee nin waxay naga dhinteen in aynu dalkeena iyo dadkeena xoreyno duliga iska dulqaadno 1200 ee nin ee dhalinyarada u badan waxa ku jira in badan oo dhalinyaro ah oo adduunka aan raad kaga tagin oo aan dadka tagin oo naftooda u sadaqeeyay sidii dadkooda inta dambe hadhay sharaf iyo karaamo ugu noolaan lahayd shahiidka dagaalka aynu galnay la galnay cadawga saddex wax baynu ka haynaa oo raasamaal inoo ah koow xurriyad laba guul saddex calanka saddexdiiba waxaa la rabaa inaynu ilaalino guushii la ilaaliyo maamulkii la ilaaliyo calankana la ilaaliyo sidaasaynu horumar ku gaaraynaa taa waxaan leeyahay shacabka ayay khusaysaa shacabku inta ay yeeleen halana la shaqeeyeen maamulka iyo waaxaha amniga iyo kuwa cashuuraadka iyo kuwa hay'ad kastoo dawladdu leedahay ku taxalluqa shacabku hala shaqeeyo maamul hadaad maqashaan waa shacabku ha shaqeeyaan leeyahay waxaan kaloo isna aan talageliyo u jeedinayaa maamulka xilligan jooga ACC muddada yar oo hadhay ama madaxweynaha ka yahay Firdhiye ku-xigeenkana ka yahay Shiine waxaan leeyahay runtii maamulku waxa loo baahan yahay in uu shaqada uu hayo faraska horta hadaan ida canaanto Soomaalidu waxay tiraa faraska waxa lagu dhuftaa inuu sii dheereeyo marka waxa weeye cid kasto idin canaato waxay ka sheegtaa inaad kor u socotaan un buraba marka waxa weeye hadii alla ku roon yahay inaad maxaa la yiraahdaa dalkii dadka u shaqeysaan inaydan nuglaan inaydan cid qura u nuglaan inaad maamulka deegaamada wada gaarsiisaan inaydan meel qura u hamran baa loo baahan yahay inaan cid qura eedan u garbaduubnaan baa loo baahan yahay inaan cidna madaxa waxaanu ka warhaynaa oo ognahay inaad wax badan oo madaxdeedii baa tiin hadaan idin saxin deeqalooc ka bixi maayo leeyahay deebadinka leeyahay dalkii dadka u shaqeeya fadhiga ka kaca maamulka deegaamada wada gaarsiiyay waxaan u mahad celinayaa mar labaad hartigii tolkay ahaa oo halganka gobolka Sool iyo deegaamada si qayb wax ka qaatay oo walaalada ilaa shuraaca waajib aan leeyahay maxaa la yiraahdaa hartina waxaan ugu baaqayaa inuu ciidan sameysto guud oo maxaa la yiraahdaa international oo maxaa la yiraahdaa ciidan maxaa la yiraahdaa hartiya oo hadee bidikada leeyahay harti oo dhan ka dhaxeeya oo deegaamada oo dhan ilaaliya haday tahay soonaha gobolka Mudug iyo gobolada ACC oo dhan ilaaliya loo baahan yahay sameystaan ciidankaas oo aan ciidna dulmiin laakiin cidii hadee bidikada leeyahay deegaanadeena soo doonata afka booda ka dhiga baan leeyahay sameysto taan intaasan kaga baxaya waxaan u mahadnaqayaa oo kale guddoomiyihii hore baarlamaanka Kenya Senator Farax Macalin oo qayb libaax ka qaatay halganka deegaanada ACC waxaan ku leeyahay in adeer garabka aan taaganahay goob kasta iyo goob kasta waxaan kaloo u mahadnaqayaa oo qaabilsanaha arrimaha UN-ka Soomaaliya ee fadhigiisu yahay Geneva
senator maxaa la yiraahdaa Abubakar Baale oo ambassador Abubakar Baale oo isna qayb ka qaatay halgankan deegaamada SC cadowga lagu xoreynay baan isna mahadnaqaya inta badan maanta hadalkaygu mahadnaqa buu u badan yahay iyo talageliyo waxaan mar labaad talageliyo siinayaa maamulka SC maxaa la yiraahdaa hogaamiyaashiisa golihiisa baarlamaanka iyo golaha maxaa la yiraahdaa cabinetka saddexda golaba waxaan siinayaa hadii bidinka leeyahay talageliyo wad aragtaan dawlad Soomaaliyeed oo awood lima jirto Soomaaliya maanta waa qabaa'il halgankeenana waxa lagu xoreeyay ka qayb qaatay qabaa'il buu ahaa harti ah ama daarood ah Agreement maxaa la yiraahdaa 90% harti baa ka qayb qaatay marka waxaan leeyahay dawlad Soomaaliyeed oo adagna ma jirto marka priority-ga waxaad siinaysaan la macaamilka soo dhaweynta kamid ahaanshaha hadii bidinka leeyahay kamid ahaanshaha markaan leeyahay waynu kamid nahay waxaan leeyahay Puntland waxa weeye balsiinasaan hadii bidinka leeyahay mudnaanta koobaad meel aan wax inaga jirin oo fara badan in loo hanqaltaaga ma ay wacna taana intaasaan ku dhaafaya waxaan kale oo iyana aan maanta ka hadlaya hadii bidinka leeyahay waxa jirtay odayaal daraata halkan ka hadlay oo cuqaala khayr Allah siiye horta cuqaale marka hore waa idin salaamay cuqaasha deegaanka oo dhan waa salaamay inta waxa ay dheer dadku halgan buu soo galay maamul buu sameystay haduu halgan soo galina maamulkaasa ba siyaasadda loo igmaday maamul buu sameystay maamulka siyaasadda loo igmaday wixii siyaasadda maamulka ayaa ka hadli kara madaxda dhaqanku kama hadli karto siyaasadda mana dhaxgali karto kuma dhax dabaalan karto xad been leenahay inuu xadkeena aynu soo dhaafno hadeen cuqaashanahay ma ay aha hadii waxa la Soomaalidu waxay ku mahmadaa koogto badato maraqa fasaqma marka inaynu baasha wada gacan gelino ma ay wacna marka waxaan leeyahay yana ku dhaxdhicin maamulka shaqadiisa loo daayo maamulkana waxaan leeyahay maamulow shaqee oo waliba gobolkan Buuhoodle shaqadii hadii bidinka ka igmaday iyo maamul fidintii waa in dhaqso loo helaa oo hal la shaqeeyo oo hadii bidinka leeyahay si daacad u shaqeeya odayaashana waxaan leeyahay odayaalow siyaasadda ku dhex dabaalanina siyaasadda inagu maamul banu idmanay maamulka aanu deeno waxaan kaloo halkan maanta dadweynaha shacabka SC guud ahaan koogaysiinaya waxa inagu soo foole oo soo socda garaadkii beelweynta Aadan Axmed garaad Cabdillaahi Axmed Cabdi Ducaale baa inagu soo foole insha Allah oo soo socda marka waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabka deegaamada SC inay u diyaar garoobaan soo dhaweynta garaadka waxaan kaloo ugu baaqayaa shacabka Buuhoodle ee gobolka Cayn in ay maalinta garaadku yimaado soo dhaweyntiisa guud iyo dibad baa laga qayb qaato oo ay ciidu dhaqaaqdo ayaan rajeenayaa insha Allah garaadadii kale markii dagaalku lagu jiray ee xoreynta lagu jiray garaad waa kii dagaalka oo wuxuu ahaa garaad jaamac garaad Ali garaadkii hadii bidinka leeyahay goosh dhigay waa garaad mideeya garaad jaamac garaad Ismaaciil baa loogu magac daray garaadkana waa garaad xoreeye garaadka beesha Aadan Axmed garaadka beelweynta Aadan Axmed garaadka guud ee gobolka Cayn garaad Cabdillaahi Axmed Cabdi Ducaale waa garaad xoreeye haddaan gobolka Buuhoodle ayna ka dhaqaaqin kontonkii marfac iyo BMadii uu garaadku hormuudka u ahaa laascaanood gacan laguma dhigeen xaqiiqdu sidaa weeye gacan laguma dhigeen cadawga ku dhagaan lahaa waxay noqon lahayd xer cadow marka waa garaad xoreeye iyo garaad mideeye iyo gala dagaalka garaadka saddexaad weeye waa garaad xoreeye taana intaasan kaga baxaya haloo diyaar garoobo soo dhaweynta garaadka waxaan leeyahay cid waliba Soomaalidu waxay ku mahmaadaa bool meeshu xaq u leeyahay lagu qodba cid waliba shaqada ay leedahay ha qabsato yeena seegan dhexdaad samin oo kala oo baaqna badeed ugu jeedinaya beesha aanu dariska nahay ee habar jalo oo indhaweyto wada duldurugsi deegaamo galbeedka aadan Buuhoodle duldurugsi ka wada jiingada ka dhistay waxaan leeyahay arinta ka waantooba hadii bidinka leeyahay dadku waxa wacan aduu darisay inuu saaq dhowro hadii dagaal siyaasadeed
iyo mid curfi iyo mid qabiil jiray waa lagu kala sad qaaday harti iyo iidoor waa ku kala sad qaadeen ciddii gardarneed baana jabtay mar dambe hadday soo duushana cidda gardaran baa jabaysa laakiin qunjufka iyo xariyaha adhiyaha la ooto iyo balli marbadhir laga sameeyo iyo jiingado la dhiso dhaqan gobeed ma aha waxaan leeyahay ka waantooba habar jalay abtiyaal waxaa joojiya degaaminta aad wadaan haddii aad joojin weydaan cawaaqib xumada ka dhacda idinka mas'uulka ah beesha habar jalaa mas'uulka ah dhulku waa inoo kala suntan yahay balli iyo goof iyo geed waa inoo kala suntan yahay waa inoo kala calaamadsan yahay inta aynu ka wada degno gobolka Togdheer gobolka Sool iyo gobolka Sanaag inta aynu ka wada degnaa kulli waa inoo kala calaamadsan yahay marka joojiya waxyaalaha noocaas oo kala ah